socdaal wuxuu u bixiyey magac la yiraahdo wershaxo socdaal wershaxo sug sheekadii ilaahay ku idmaayo socdaal waxaa la dhahayaa dhow wershaxo asalaamu calaykum saaxiibada qiimaha badan meel walba dunida ka joogtaan waan idin salaamayaa waa anigoo saamiya nigoo saada wacane waa iyadoo saada wacan ah okay sidaad ujeedaan caawo garabkayga waxaa fadhiso saado dee dabcan kolley waxbaan wadnaa weli hawl aad u culus ayaan wadnaa hawl loo baahan yahay oo ayaantan baraha bulshada muxuu ahaay ka socota ayaa rabnaa inaan ka hadalno ugu horreyn horta saado kusoo dhawow channelkayga asxaabtayda dhammaan waxaan ku leeyahay kusoo dhawood horta intaana gelin saaxiibayaal waxaan leenahay ciid wanaagsan ciid mubaarak kula caam wa antum bilkhayr meel walba aad dunida ku joogtaan waan idin salaameynaa asxaabay dib ayaan usoo laabanay asxaabtayda ma dhaysin ciid mubaarak warka maba siinin be adaa ku sugaaya aniga hadal maba laga sugaya waa laga dafaaya iga badisay asxaabta saami maasha allah walaalo qaaliya walaalo aad jecelnahay asxaabay meel kastoo aad joogtiin wacan oo wanaagsan wax walba oo idin tahay ciid wanaagsan idin leeyahay markaas hadda maanta waxaa marti ku ahay janaalka walaalkay waxaan u maleeyaa markii labaad miyaa kasoo muuqanaya weli ma kasoo dabcan markii labaad waaye kuley marti miyi hadda marka koowaad ba haddaan soo galay marka labaad marti miyi okay dabcan looma u baahna inaad janalka aan marti ku ahaato asxaabtaydana way kusoo dhaweynayaan anna waa kusoo dhaweeyey saado maasha allah maanta barnaamij ayaan halkan ku wadaa waxa ninka rag odayga wax wada wax yar maahan maanta waxaan muxuu ahay qalinkaan aan usoo qaatay hawl yar ku qortay list ayaan wataa list anaa la yaabay haddii aan barnaamijkan u guda galno baryahan arrimaha baraha bulshada waxaa ka socdo in muxuu ahaa youtubeleyda isweeraraan ma garateen iyo ka dhexdooda haddii aan barnaamijka ugu horeeyo waxaan ku bilaami doonaa nin la yiraahdo sheekh shantaay weli waa maqashaa malena soo maqlaya kaas ka oday daalan oo duluf ah sheekha iga dhigin sheekh ma dhigi kari kolley ani sheekh ma dhigi kari mana xaqiiqsani inuu yahay sheekh balse muxuu ahaay magaca sheekh isagaa la baxay oo cid hadda ma garanaysaay u birisee u taqaantana ma garana aniga haddii aan dhaha maantana muxuu ahaay sheekh waa ku dambaabaya haddii marka intaa laga soo tago ninkan waa nin horta aad u badan hadal sheekada aa wadaan kaa dhex galayo waa shiiqi sida hadda loo isticmaalo xaaji oo kale qofka la iska dhahaayo xaaji oo xaajigan ahayn ninkan ayaantan dambe wuxuu sameeyaa inuu masaajidka muuqaal kusoo dhex duubo beedka ilaahay weliba ma garanaysaa isagoo dad caynayo dad aflagaadeynayo waa intaa aan muuqaaladiisa arkaya weliba ma aana arkin isagoo meel kale wax ku duubaya inta ugu badan uu muuqaalada uu soo duubana muxuu ahaay wuxuu kasoo duubaa masaajidka beedka ilaahay weliba isagoo dad ku dhex caynaayo haddii marka aniga markaan u kurgalay dee dabcan horta ninkan waxyaalo badan ayuu sameeyey dad badan ayuu ma garanaysaa muxuu ahaay si xun u caayay balse horta haddii uu masaajid wax ku dhex duubaayo masaajid waa tii loogu talagalay in lagu cibaadaysto balse mayse ahayn in muxuu ahaay uu dad ka dhexaayo masaajid dad laga dhexaanayo ninkaas baa ugu horeeyo horta taariikhda haddii aan dhan ka fiirino baaldahab buu ka galay waa ninka keliya ee masaajidaha dadka kasoo dhexaayo haddii inta aan ka gudbo oo barnaamijkeena aan u guda galo ninkan shantaay la yiraahdo aniga sheekh ma dhihi kare shantaay ninkan marka ninkan haddii aan u guda galo waxaa jirta magacyo uu bixiyey magacyo aad aan ula yaabay aan la yaabay ayuu bixiyey weliba dadkii caanka ahaa oo baraha bulshada youtubeleyda ahaa ayuu weliba wuxuu u bixiyey magacyo aan la yaabay
magacyada mid magacyahaas barta waya list dhan ahaya صح haddii aan qayb kasoo tagana isoo xasuusiya qaybta dambaa muxuu ahaa baatu ayaan kusoo qaadan doonaa haddii aan u guda galo qofka ugu horeeyo uu magaca u bixiyey waxaa ka mid ah socdaal socdaal waa taqaantaa socdaal weli dhulku la jaray socdaal naftirkiisa isaga nin wanaagsan maahan ma garateen awalba isagoo ree aakhiraad igumay soo gale socdaal waa nin iska dhalinyaro ah anad intaan arkay kulley socdaal ilama xumo sababta waa nin iska dhalinyaro waa nin iska inuu horumar sameeyo jecel waayo okay day dabcan kolley waa aragtidaada kolley qof waliba aragti u leeyahay ninka shantaay leeyahay aragtida adiga hadda aad socdaal ka haysato kama haysto runta markii laga hadlo okay haddii aan dib u milicsano oo aan dib u eegno weliba aan dib u fiirino magacyadii uu bixiyey shantaay waxaa ka mid ah socdaal socdaal wuxuu u bixiyey magac la yiraahdo wershuxux socdaal wershuxuxuna ilaahay ku idmaayo socdaal waxaa la dhahayaa dha wershuxux socdaal wuxuu sug sheekadiisa sheekada kusoo xasuustay ninaa hadda ka hor waxaa lama kasi cunugiisi aa laga soo dacwooday ninaa cunugiisa uga soo dacwooday sheekadaas ma aqaan inaa maqashay in kale kule asxaabtan way maqleen wuxuu dhahaa le adeerow wiilkaada iga reebo boon uu dhahaay wiilka aabihiis aa dacwo u tegay miyaa wiilka aabihiisii hortaagana wuxuu dhahay boon u dhahdaa hadda wuxuu yidhi socdaal weershuxuux maa wax ka sheeguu dhayaale hadduu ilaahay ku idmaayo ninkaan socdaal kolley waxba uma reebanaan u malaynaya haddii aan kasoo tago socdaal horta socdaalow kolley dee dabcan magac iyo masiibuhu maalin bay baxaan ma garatay waan ka xumahay magaca waan ka xumahay haddii aan guda galo qofka xigo socdaal waxaa leeyahay kolley jug baa ku gaartay jugtaas allaha kugu boogadhayo jug xaq darad allah kaaga dhigo waa magac xaq darad jugkaasoo gaartay waxaa waaye nin la yiraahdo shantaaye ana ma dhihi karo sheekh waaye allaha kugu boogadhayo haddii aan taa kasoo tago qofka xigo waa maslaxo kolley maslaxo waa taqaantaa waa gabadha uu qabo catoosh kolley waad aragteen muuqaalay soo duduubaan kolley waana dad adiga iska lamaana ah haddii aan fiiriyo magac buu u bixiyey aan la yaabay ilaa hadda midii kale waxaan la yaabanahay magacyada ninkaan uu bixinayo aniga micnahooda hataa maba garanayo maslaxo wuxuu u bixiyey jeebey hadduu ilaah ku idmaayo maslaxo jeebey baa la dhihi jeebey maxaa laga wadaa maxaa garanani كل أصحاب ترى ومجا مجا عيسى ومجا جرير تمدا يلا بحر أنا ما قرنا مية هرت سجى شنطايا جرير معهن حتى أنا أقول هاي جرير معهن شنطايا جرير ما قرأتي مركا نكا وحود هاي مصلحو وحالو بحين هي جيبي كل ما يشوفك كان أنا ما قرنا مجا عز جيبي وحلا جودنا إن دي أصحابهم بنا مشوا هاي نوز شيء دونتو حدي قف كلا بعد أن أبجد كلا سميحو قبل بعد قانت أمرنا سميحو كل أنت كعقان وقبل ونحسن ومحو هاي أد ونحسن وتيك توك إذا أيام بدنا مقرني سعركا أنتوا بدن لكن إذا نفتر كذا ما حبوا بحي قبل اسمحوا أنت بدن وحياله حنا دبنا كم ريكتو إحنا كمان هذا الشيء ها مركا ما حبوا بحي ما حبوا بحي أنا يا بحيتاي رابعو ها مركا وما قرنايو ومجا رابع ومجا إسك عادي مية مس وحكلو كودا ما قرناي تاز ما قرنايو مركا مدة عن كسوتو سميحو كل أنت عن كعقان نيجا كل وعجور ونحسن كبر معهم بس ما قعد بحي رابع وكودا أنا ما قرنايو جواب تسأل لقى سؤال حدي أن قفك حاجة أنا وجود كلام فرتم بالبلارك واتقان تأمرين واتين بالبلارك كسو عم بها بابجي قفت كلية اسك علين كرتو شنطاي ووليبا قد كيس بيو وقلين كرتو وفرتم بالبلارك اسك عليس وعتر لمبر كان اسك عليس فرتم بالبلارك واسك عليني هو امسي يقل قفي وصوب حرواي وكا انا بقول هاي فرتم بالبلارك ها فرتم بالبلارك كل وحواي سدا انت كاركي وناك ادك وديغله
ma garatay qoftaas way iska celinaysaa صح shantaay meel iska saari صح krif krif uma waa keenayo la ogyahaa laakiinse waxaa kaga daranbo magac buu bixiyey timiro timiro ha okay magacyaha intay kugu diyaarsan yihiin adoo masaajidka joogto ma waraa war waxaan la yaabay ninkaan masaajidka joogo oo haddana dadka masaajidka ma garanaysaa magacyo ugu soo bixinayo aniga waan garan lahay waxaan la yaabay mataqaanaa masaajidka mas-uuliyiin malahan soo ma joogto maamusho ilaa masaajidku waa beyd ilaahay horta qof laga xiga malaha laakiin mas-uuliyiinuu leeyahay mas-uuliyiinta masaajidka iska leh maxay ugu fasaxeen waa la garan laayahay ninkaas waa dhuumaaleysi maalin hore sawir laga soo qaadaan arkayay dhuumaaleysiyu masaajidka wax ku duubtaa laakiin dadka ma umalayni jirin waqti waxaa umalayni jirin derbi yaroo saas iska ah inuu samaystaa umalayni jirin ninka masaajidka badanaa markuu cidlo yahay oo dadka ay kala tagaan oo salaada casar iyo ma garanaysaa muxuu ahay magaaladu dadka ay kala tagaan uu ninkaan masaajid usoo dhudhuuntaa sawirka markaa arkay isaga iyo wiilkana kaamirada uu ka fadhiyo isagana uu hor fadhiyaa arkay markaas waxaan dhahay wallahi waa masaajid waqtiga ugu yar barnaamijkeena magacyadii ayaan u gudugalaynaa magaca xigo waa Drisle wuxuu u bixiyey horta Drisle inta ka aqaano qof xun ma ahan nin maanta dee oo muxuu ahay oo qudaysho mudan waaye haddii la baro xagga social media ma garatay qofka sidiisana horumarkiisa lagama xumaado dee libintiisa waa loo qira Drisle ninkaan magac buu u bixiyey magacuu bixiye waxa waaye buumo weyne buumo weyne waa magacaan la yaabay waay waa magaca ugu qosol badnaa labada magac ugu qosolka badnaa waxay ahaayeen socdaal iyo Drisle wuxuu bixiyey buumo weyne okay adiga ma buumo yartahay su-aasha meesha taalo shantaayow ma buumo yar tahay qamiis weyne dhaha isagana naftirkiisa qamiis weyne dhaha iyo calol weyne ha hadduu ilaah ku idmaayo qamiis weynaa la dhahayo qamiis weynaa la dhaha ha marka haddana haddii aan intaa kasoo tago miswaal waa taqaantaa gabadha tiktoka muxuu ahaay aad ku isticmaashaa magac buu u bixiyey magacaas waxaa la yidhaahdaayo magacaas waxaa la dhahaa shiniyo weligeed ma maqlan ba an magac noocaas weligeed ma maqlan shini malaba mu iska dhaho malab miswaal ninkaa wuxuu u bixiyey shiniyo runtaa wanaagsan wuxuu ka rabaa shiniyada muxuu ka wadaa muxuu ka wadaa shiniyada wuxuu ka wado ilaa hadda ani ma garanayo asxaabtaa la weydiinayaa miswaal dee qof xun ma ahan marka si loo fiiriyo waa gabar qalbi wanaagsan waxay rabta ha duubato waxay rabtana ha duubato shaqsi ahaanteeda haddii ay isqaawinayso hadday isqaawinayso iida u taala ma garatee laakiin intaa ka arkay gabar qalbi wanaagsan waay gabar kale waxaa jirta oo muxuu ahaay la yiraahdo ifraax hiblaaye mavio carifay wuxuu ka wadaa ani ma garanayo anita wallahi doono magacyaha sida ku sheegay waa magacyaha jareerta ee la baxdo carifay iyo shiniyo iyo qofka ugu dambeeyo qofka waa magac aan la yaabin wala ku idmahayo waxaa la dhahaa qamiis weyne shantaay damba lama dhoo shaydaan qamiis weyne la dhahaa ilaa ku idmaayo shantaay shaydaana la dhahaa waa takas marka kolley dabcan magacyo intaa ka badan ayuu bixiyey anaga waqtiga nagu socdo magac wuxuu bixiyey gabar la dhaho salaama naas dheer salaama naas dheer uu yiri meelay joogto haliiso ogaa salaama naas dheer Nairobi salaama naas dheer gabadha oo halkan naas ma garanaysaa ruuxda miya salaama naas dheer intay joogto waxna kama qaadi kartid shantaayo kuwa xamara ugu goodinaysa maahan ida biyeelo mideeda kale xagee joogtaa Nairobi intay joogto masaajidka waa beed ilaahay in la cibaadeysta loogu talagalay waa lagu cibaadeysta ummadda muslimiinta dhanaa gasho adiga muslimba ma tiirtaa kuna dambi yar ay soo gaaraaye masaajidka dadka ku xamani oo fiyuska ku raadsan suks fariina u diraaye oo fiyuska ku raadsani iska daa ka soo bax banaanahada ilaahay baa qabtaa fiyuska banaanaha kale ka raadso مساجد يفيز كاجن شرمطة شنطة الشيخ متين اوكي حناقة يقولوا تجن عيلة عارف شيخ واقفنا شيخين وشيخ مقالكو نقول دير هذا أوي برنامج كنا كل مقعية بدن أيوبي كل هذا إنتان أيان سوق هذا طبعا كل مقعيها كله وإستجنا ضدك
caanka u bixiyana waan soo qaadan doonaa weliba anagoo halkaan keeni doono saaxiibayaal waxaa arrimaha baraha bulshada baryahan dambe ka socdo halkaan ayaan keeni doonaa weliba anagoona dee cidna aan u eexanaynin laakiin qof weliba wuxuu ayaan ka sheegaynaa marka haddii aan fariin ninkaan u diro Shantaay la dhaho sheekh ma dhihi kari aniga Shantaay baa dhahayaa waxaan leeyahay niyahow horta waxyaalaha aad samaynayso wax wanaagsan ma ahane wax wanaagsan leemow talentigaada ayaysan noqonin in dadka aad masaajid gudihiisa aad kasoo dhex caaydo waa fariinta aniga aan u diraayo fariinta aan u diraayo kalena waxay tahay nin weyn oo sunnada ka muuqata ayaa tahay wax isku reebo magaranaysaa haddii masaajidka aad tagtana kitaabadaada aqriso ee dadka baraha bulshada ku jiro muxuu ahaaya kusoo hadal qaadanin waxyaabaha aad uba bixinaysana ka daa ma garatid midaada kalena waa soo caan baxdee hadda iska caadi waayo fi waa lagu daawanaya hataa dadka dhan subscribe ay ku wada dheheen wax la iska sheeg okay marka barnaamijkeena caawo intaas ayaan kusoo afmeeraynaa waa aniga iyo saado barnaamijkeena caawo daadihinayno intaan barnaamij xigo aan ku kulmeyna waxaan leenahay nabadgeliyo saaxiibayaal